waxaan rabnaa anaga Kenya wayna soo haysay wana soo gacan qabatay aad iyo aad baan horta ugu mahadnaqaynaa laakiin hadda waxay noqotay doqontii 12 arad riday oo aradkii u dambeeyay ka kacdo iskaga tagtay inay noqdaan ma ka yaabaynaayo sidii matalan dadkeedii ay awal u buufiso kale inay noo buufisaan ka baqaynaa marka anigana dharan ruuxa aan soo wax kastaan marka ma helaha hal caado saliida iyo hal loo gilay engegan waxa lagu galay waxa lagu shiiday lacag badan yihiin ayaa wadanka imaaday marka waxa lagu daraa cid leeyahay ma waa la guura laga ran waayeen marka maxaan diyaarno inaan beeraha iska qabto iska laab marka fadlan dawladda Kenya way nagu daashay iyadana ammaankeedii bay wax meel ay ka qabato la tahay sidaa darteed way nagu daashay waxaan codsan lahayn dadkan in aan lagu shubin bad ku shubitaan ma arkaani dadka Liibiya ku dhamaanay iyo dadka repatriation-ka loo celinayo waa seen marka waxaan codsan lahaa in dal saddexaad balna noo fiiriya xuquuqda bini'aadamka iyo dhowrka anigu familkayga dadkay anta saddexda anigu inta aan ku watay marka inta Keenay wax aqli qaba kuma jirin ilmahan camal ay ahayd anigu inta ka qabanaysan camal halkan wax ku dhashay camal oo mathala inta kale intaan ku dhalay meel xabad ka dhic ma arkin meel dagaal ama uu taay ma arkin dadkaas intuu qaban karaa waay waxbarashada wax bartaan iyo kiiga bartay iyo dhalinyarada casirka inay baloon ciyaartay iyo fikradooda waa intaas inay baloon ciyaaraan wax bartaan leeyahay hadii wadankaas ay tagaan hadda foodada ka taaganta la geeyo dhibaato weyn baa soo wajihi kartaa barkay dhalinyaradii meel ay aagdama garanayso lama qabsan karto noloshii marka ayadeeda waxay ku noqonaysaa wax cusub oo waji hor leh ku noqonaysaa meeshan inta waa isku dhex jiraan korka imaado deegaanadana waa imaadaan waxa ka gataan dadka deegaankana waxa gataan dadka qaxootiga waa gataan marka qaxootiga meesha duu ka baxo waxa way dadka deegaanka ma imaanayaan oo meesha caqabada ka imaanaysa